kulankan kulankii ka horeeyay waxaan soo bandhignay daraasadii natiijooyin ka soo baxay caqabadihii waa la falanqeeyay laakiin waxaan niri caqabadahan sektarada dhanaa wajahay marka maanta waxaan rabnaa inaan si gaar ah especially sectorkan oo agriculture-ka inaan iftiinka ku shidno xalka iyo electricityna aan ka sii wada hadalno because caqabada hadii la sheego waa in laga gudbaa xalkii waa in laga hadlaa eventiga maanta waxay noqotay inaan ka wada hadalno beeraha maadaama beeraley ee isugu timid waxyaabaha jira caqabadihii jiro iyo sidii loogu gudbi karo runtii waxyaabo badan ayaa laga faa'iidaa waana wax dan u ah in la isdhexgalo oo beeraleyda laftirkeed intay isu timaado wixii cilado jiro ama caqabado jiro laga wada hadlo waxaan ku faraxsanaa maanta inaan ka soo qayb galay kulankan iskugu imaanayaan beeraleyda waxaa isku timid ku dhawaad 30 qof oo rag iyo dumar isugu jira wada dhalinyaro ah beeraley ah culumta beeraha soo bartay caqabadaha sektorka beeraha haysta mid baan dul istaagnay hadda samtay waxaan ku kala faa'iidnay oo kala wada qaadanay hadba sidii caqabadaas looga bixi karo kulankan waxyaabahan ka faa'iidnay waxa kamid ah inaan isweydaarsano xog dhaxdeena dadka beeraleyda dhaxdeeda in xog isweydaarsadaan laba waxaan ka faa'iidnay inay jiraan fursado dibadda ah ee loo heli karo kambaniyada yaryarka ee kobca ku jiro inaan helno kambaniyo naga waaweyn ee aan ka helno cilmi financial capacity aan ka helno dhaqaale aan isweydaarsano eventigan maanta dhacay iyo kii ka horeeyayba labadaba waxay ahayd mid aad iyo aad looga faa'iiday maantana beeraleyda un baan joogtay waana soo dhaweynaa waana ku faraxsanaa caqabadaha way farbadiyeen wax soo saarka beeraha Soomaaliya aad ay u liitaan kuwa waaweyn waxa kamid ah xagga waraabka oo kale oo dhibaato ka haysato oo wabigiyo marna tagaayo marna joogo taasoo beeraleydu u saamaxeen inay ka faa'iideystaan beerahooda tan labaad oo caqabada ay xigtaan ayadana waxay noqonaysaa qaybta beergashiga oo afka qalaad u yiraahdo agro inputska kuwaas ay caqabada ka tahay qaasatan kan abuurka beeraleyda aad u liitaa oo abuur hadda tayeysan oo certified amala taskiyay oo beeraleyda isticmaalaan ma jiraan marka qaybtaas ayadana waa tahay saddexaad oo hadda si raaci karto waxay tahay sidii loo maareyn lahaa hawlaha maalmeedka beeraha taasina caqabada ka jirto dhinacaas abuurka halka waxaan u aragnay in shakhsiyaad ay sameyn karin oo u baahan tahay in research lagu sameeyo oo la dabagalo dawladda ay dabagasho marka waxay noqonayaan horta in la sameeyo seed bangi qaasatan Soomaaliya seedskii asal ku leedahay in la keediyo markii laga yimaado waxaan iida lahayn waxa kale oo xiga boosafasinka ko waxa uu dhignay inaan la haysin ama uu yar yahay storage system ama aqoon badan aan loo lahayn ama traditional loo sameeyo modern labadaba inay meesha ka baxsantay sidoo kale qalab lagu sameeyo boosafasinka loo isticmaali lahay inaan boqolkiiba 98 likaraan la haysin oo si manual aan u adeegsano waxa kale oo caqabadaha ayagana naga haysta transportation oo kale ma wadooyinka liidan ama gaadiidkii wax lagu soo qaadi lahay ayaa meesha aad ugu yar wadanka fursado fiican oo haysta dhalinyaro aad u far badan oo runtii intii reed hadda aan shirka joogay oo aan ka qayb galay waxa arkay dhalinyaro capacity aqoontii leh fahamkiina leh haddana marka in waxaan laga maarmaynin marka in lasla wada helo roolkii dowladda amniga waxa loo helo biyaha iyo xalkiisa waxyaabo badan marka waxaa jiro value chain oo isku xirmaya jiro aqoonteedii marka waa taallaa waxaan leenahay fariinta ha gaarto Soomaalida si loo gaaro isku filnaansho dhinaca cuntada ah mar labaad iyo saddexaad waa mahadsantihiin soo dhawaad